madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay shirka dhaqaalaha Afrika oo ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. wafdiga madaxweynaha ee shirka ka qayb galaya waxa kamid ah wasiirada arrimaha dibadda, qorsheynta, beeraha iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in la maalgashado cidii rabtana ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan. wafdiga Soomaaliya ka socdo oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta ay ku sugan yihiin Masar waxa la filayaa in la kulmaan madaxda Afrika ee shirka ku sugan si ay ugu bandhigaan in Soomaaliya ay ka go'an tahay in la maalgashado. Somalia is geographically blessed as it has the potential. Soomaaliya waxay ku taallaa juqraafi ahaan meel muhiim ah waxaana ay isku xirtaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo caalamka intiisa kale. waxa ay leedahay kheyraad fara badan oo aysan lahayn wadamo badan oo Afrikaan ah. Soomaaliya way og tahay dadaalka uu midowga Afrika ku bixinayo ka shaqaysiinta, abuuridda iyo dhisidda ganacsiga xorta ah ee qaaradda iyo in dhaqaalaha bulshada sare loo qaado lana dhiirigeliyo wax soo saarka iyo iibka qaaradda dhexdeeda ah. siyaasadda dibadda ee Soomaaliya iyo qorshaha horumarinta waxa ay muhiimad weyn siinayaan maalgashiga caalamiga ah. waxaan rabnaa in Afrika ay gudaheeda wax isku dhoofiso caalamkana wax u dhoofiso. Foreign policy and national development plan put investment at the heart of international engagement. We need to make in Africa and export to the continent and to the world. Ahmed Saeed Ahmed, Television Cable, magaalada Muqdisho.